kusoo dhawaada kanaalka Right Click Som magacayga waa Master Click isbuucyadii la soo dhaafay ayaa isoo gaaray codsiyo ku saabsan barashada cilmiga jabsashada oo loo yaqaano hacking maanta oo ah 19 May 2020 waxaan bilaabayaa koorso aan ugu magac daray hacking iyo hortagiis inta aan muuqaalka oo ugu talagalay hordhaca koorsadan u gudagelin waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe saarto sidoo kalena gambaleelka furato si aad u hesho cashiradan maanta muuqaalkan waxaan idin kula wadaagi doonaa waxyaabo badan oo aad ka ogeyn cilmigan waxaana kamid ah waa maxay hacking maxaa kamid ah erayada la isticmaalo sidee ay u kala baxaan hackerska ethical hacking maxaa laga wadaa hacking waa jabsashada computer systemka mise system qof kale si aad u hesho macluumaad hackerska badana hackingka si khaldan ay u isticmaalaan barna si wanaagsan ay u isticmaalaan oo isku difaacaan marka hackerska badana waxay isticmaalaan markay wax jibinayaan wax la dhaho password cracking algorithm maxaa kamid ah erayada la isticmaalo waxaa kamid ah hacker waad maqasheen in badan hacker waa qofka jabsanayo sida hore inuu sheegay waxay isticmaalaan waxa la dhaho password cracking algorithm erayada la isticmaalo badana waxaa kamid ah waa victim waa qofka la jabsanayo dhibane afsoomaali waxa uu dhahaa dhibane marka qofka la jabsanayo waxa la dhahaa victim sidee ay u kala baxaan hackerska waxay u kala baxaan group waxaa kamid ah ethical hackers waa koox hackers oo shaqadoodu tahay inay ogaadaan systemyada meelaha ay ka daciifsan yihiin waxaa jiro kale koox la dhaho ayagana black hat hackers waa hackers nooc kamid ah oo badana shaqadoodu tahay systemyada sida bankiga industrieska iyo companieska inay dhacaan marka kuwan waa kuwa khatar ah waa laga digtoonayaa badana waxaa kaloo jiro kuwa la dhaho grey hat hackers waa hackers nooc kamid ah ayagana oo u dhaxeeyo ethical hackers iyo black hat hackers marka kuwan khatartoodu waa iska yartahay waxaa kaloo jiro koox lagu magacaabo script kids marka kuwan kooxdani waa koox aan xirfad lahayn laakiin waxay ku dhacaan systemyada aaladaha la soo saaray sida aaladaha dad hore soo saaran sida tooliska waxa loogu jabsado oo kale waa maxay ethical hacking waa barashada cilmiga kor u qaadida amniga systemka maanta muuqaalkeena intaas ayuu ku ekaa marka sida aan horay idinku sheegay muuqaalkan waxa aan wuxuu ku saabsanaa hordhaca koorsadan sida aan filay muuqaalkan wax badan ayaa ka faa'iiday muuqaalkan iyo muuqaalo ka badan oo hacking ku saabsan ayaan soo wadaa cashirada hacking ku saabsana waxaan idinku guri doonaa khaanadan ay ku qoran tahay hacking iyo hortagiis insha Allah waxaan isku dayi doonaa cashir kasta oo hacking ku saabsan markaan soo diyaariyo in aan idin raacsiiyo si looga hortago marka haddii ay tahay markii koowaad aad soo boqoto kanaalka Right Click Som oo aniga magacayga ah Master Click kani waa kanaalkayda marka haddii ay tahay markii aad soo boqoto fadlan ha iloobi inaad subscribe saarto sidoo kalena beelka ku xirato insha Allah isbuuc kasto laba muuqaal oo ku saabsan hacking ayaan soo dhigi rabaa koorsadan way si joogto ah u socon doontaa ku soo biir oo noqo saaxiibada ku xiran Right Click Som wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh